beeraley beeraha soo bartay aqoon-yahaminta in loo soo diro beeraleyda si maaragtay isaga wax uga caawiyaan extensional hataa ay siiyaan ama wax uga caawiyaan. warbixinteena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa beeraleyda Soomaaliya iyo caqabadaha haysta. waxa warbixinta nagala qayb qaadan doona qaar ka mid ah beeraleyda Soomaaliya, balse marka hore yar oo faahfaahina. Soomaaliya waxa ay leedahay dhul beereed ballaaran oo ku habboon wax soo saarka beeraha. waxaa la qiyaasaa in dhul beereedka Soomaaliya uu ku dhow yahay 8.1 milyan oo hektar. si kastaba ha ahaatee kaliya qayb yar oo ka mid ah dhulkaas ayaa hadda la beertaa, iyadoo sababaha ugu weyn ee loo beero la'yahay ay ka mid yihiin amni darrida, abaaraha, kaabayaasha oo liita, wacyiga dhul beerashada ee bulshada Soomaaliyeed oo hoos u dhacay 30 iyo dhowrkii sano ee ugu dambeeyay. ganacsatada dibadda ka keena cunooyinka, hay'adaha ajnabiga ah qaarkood iyo caqabado kale oo badan ayaa loo tiiriyaa inay sabab u yihiin hoos u dhac ku yimid dhul beerashada Soomaaliya. haddaba warbixinteena waxa nagala qayb qaadanaya Cabdiweli Maxamed Axmed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellada Hoose. Cabdiweli sidoo kale waxa uu ka baxay kuliyadda beeraha. Cabdiweli waxa uu faahfaahin naga sii doonaa caqabadaha haysta beeraleyda oo asagoo ka mid yahay, isagoo waliba ku sugan beertiisa dhexdeeda ayuu warbixinta nagala qayb qaadan doonaa. Cabdiweli ku soo dhawow Awow Media, bal faahfaahin naga sii caqabadaha idin haysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsantihiin bahda Awow Media, waan salaanay. magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Axmed, waxaan ku suganaa gobolka Shabeellaha Hoose. waa ku mahadsantihiin su'aalaha naga soo weydiisan beeraleyda Soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta. guud ahaan caqabadaha beeraleyda Soomaaliyeed haysta way ballaaran yihiin, laakiin hadaan wax ka taataabano waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah webiga oo kale. hadda inuu webiga uu sameeyo fatahaado aad u daran dadka saameeya. fatahaadahaas oo markii webiga aad u buuxsamo oo kale ii sheeg maxaan ku yiraahdaa ka dhasha oona galaafta dadka naftooda iyo hantidooda intaba. waxa fatahaadahaas keenaya wax kale maahan, waa webigii oo maxaan ku yiraahdaa qodnayn oo buuxsamay, qashin ka buuxsamay carro oo aan la qodin, oo aan garab macnaha ii sheeg beeraleyda lagu siin inay qotaan webiga. taasi waa midaas. waxyaalaha kale oo saameynta leh waxaa ka mid ah ama ii sheeg waddanka baahida weyn looga qabo shaybaar oo kale ama laab wax soil test lagu sameeyo, taasoo lagu ogaanayo soil nutrient iyo sidoo kale soil pH. marka laabkaas waddanka ma jiro. hadda qofku uu ogaado carrada ta shaybaar geysto, uu carradiisa ogaado inta nafaqo ku jirta, dhammaan markuu ogaado inta nafaqo uu haysto guud ahaan intay la eg tahay, kabacdi inta ka maqan asaa ku darsan kara. marka waa simple, wax iska fudud waaye. sidoo kale soil pH-ka dhulka inuu cusbo leeyahay in kale qofku inuu ogaado waa muhiim. marka dhulka indha ka cabir la iska beertaa, lama oga wax ka jira nafaqo inuu leeyahay, in cusbo la tahay. cusbaas xogaa in la fahmo xataa laga yaabaa, laakiin inta badan soil nutrient-ga ama dhulka inuu nafaqo leeyahay lama oga. marka dhibaatooyinkaasna way jiraan oo laabka loo qabo. sidoo kale waxyaalaha kaloo jira yacni cudurro iyo cayaano badan hadda waddanka ka jira, mana jirto cid maaragtay beeraleyda ka caawisa ama hay'ad ah yacni ka caawinaysa ma jirto. maxaan ku yiraahdaa beeraleyda dhibkaas u qabaan. xitaa waxa la rabaa haddii maaragtay ii sheeg maxaan ku yiraahdaa aan beeraleyda si kale garab kale aan la sii karin, dadka xataa ardada ah oo jaamacadaha ka soo baxay oo maxaan ku yiraahdaa beeraha soo bartay aqoon-yahaminta in loo soo diro beeraleyda si maaragtay isaga wax uga caawiyaan extensional hataa ay siiyaan ama wax uga caawiyaan. waa muhiim ah lahayd, laakiin ilaahay amarkiis ma aysan dhicin. wax hadda dhacay weli maahan, waana wax fudud oo kale wax saa u dhib badan inaysan ahayn ayaan dareemaynaa. marka yacni waan isu baahan yihiin dadka ardada ee hadda waddankii maxaan ku yiraahdaa jooga, waxna aan hadda shaqo hayn inta badan, iyo beeraleyda aad isugu baahan yihiin waa iska bayaan oo waa dad isu baahan. marka caqabadahaas ayaa iska jira inta badan. sidoo kale caqabadaha waxaa ka mid ah laamiga oo kale. hadda laamigii ka baxayay Afgooye ilaa iyo Kismaayo waa burbursan yahay, waa qar iyo buur, mana diyaarsana, mana ahan meel lagu ku fiican ama ku habboon transportation. dadka beeraleyda caqabad weyn ayay mararka qaar kala kulmaan. mararka qaar iyadoo dalagooda soo go'ay in laamigii ay meel mariyaan waayaan ama roob iska da'o kale, waa caqabada guud waddanka jira waaye. marka waxyaalahaas iyo waxyaalo kale badan ayaa waddanka inta badan ka dhaca, mana ahan wax maaragtay ii sheeg wax aad u dhib badan waaye. marka intaasaan kusoo koobaynaa Awow Media. idinku aad u mahadsan, waa idin salaamayna insha Allah. Cabdiweli aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. daawade, adiga maxay kula tahay caqabadaha haysta beeraleyda Soomaaliyeed iyo wax soo saarka guud ahaan dalka Soomaaliya? ama ma haysaa fikrado ku saabsan wax soo saarka beeraha Soomaaliya iyo qaabka loo kordhi karo? fadlan wixii fikrada oo haysto ama tala ah nagula soo wadaag qaybta commentiga. waa mahadsantahay.